deegaanka adoo raali marka la dadka deegaanka ama ganacsato ahaadeen ama dadka deegaanka deegaanka wax ku haysta ahaadeen ama waalidiinta ahaadeen kuwa xaaji maxaad u sheegaysaa waxaan sheegayaa waa iyagoo kale hadaynan kulliga fadhiga waqtin jaamacadani wax weyn bay doonaysaa samaysan bay doonaysaa kuraasay bay doonaysaa waxay doonaysaa macallimiin bay doonaysaa wax badan bay doonaysaa hadaynan ka dibadda jira iyo ka gudaha jiraba inaan fadhiga waqtin de meeshaynu doonayna ka gaarmayno saynu meeshaynu doonayna uga gaarna wax walba waa in loo qabtaa ciddii kasta ama gudaha joogta ama dibadda joogtaana waa inay u diyaar garowdaa oo annaga odayaasha ugu horeynaa iyo culimada ugu horeynaa inaanu ka qayb galno waad mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبعد waxaa farxad noo ah goobtan aynu galabta joogno oo ah goobta loo hindisay inay noqoto jaamacadda Buuhoodle aad baan ugu faraxsanahay mar labaad waxaan u mahad celinaynaa ninka fikradan iska lahaa oo Cabdillaahi Cali Salebaan Gaani iyo cidii kasta oo kala qayb qaadatay iyo inta kala qayb qaadan doonta iyagana waxaan leenahay Ilaahay idin fududeeyo waxaan kana waxbarashada deegaanka ka jirta baahideeda koowaad maanta waa jaamacad bayskii hoose deegaanka waa ka jira iyo asaaskii laakiin waxaan u baahanahay madaxii baa naga maqan waxaad moodaa ardaygu markuu secondary ka baxo in mustaqbal madow uu ka horeeyo duruufaha jira marka la eego iyo socodkana waxa weeye deegaanka laga helo jaamacad aad bay muhiim u tahay dhismahan aynu hadda joogno waad aragtaan oo de waa una asaaskii baa jooga qabyo fara badan baa ka muuqata in dhismahan la dhammaystiro dhul baa u bannaan dhulkan hadda dhisan ka weyn oo ilaa 7 balood ah 12 mitir ah in dhulka isagana sidii loo dhisi lahaa lagu talagalo agabkii jaamacaddu ay u baahnayd oo dhan in loo hawlgala ayuu u baahan yahay waxaan leenahay sida uu xaajigu sheegay haddaan anagu qoliyaha gudaha nahay wixii taalka yaa waa ka qayb qaadanayna waana waajibna saaran dadka dibaddana waxaanu ku boorinaynaa deegaanku baahi weyn oo waxbarasho qaba baahi jaamacadeed buu qabaa taa maanta la hindisay aynu wax ka hayno qabaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin fududeeyo ayaan leenahay wad mahadsantii بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku dasanayaa kelmadii hore oo furinka ahayd soo weynta wadagtiin tacliintu meesha ay kaga jirto nolosha bani aadanka islaam baynu nahay nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markii la soo diray min awal wax laga bilaabay tacliin ba laga bilaabay idara rabbuka lakram alayhi subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun deegaanka babalashika markaan deegaanka Buuhoodle dadka deegaanka ku abtirsada ama ku soo hoyda ama magaalada ay u tahay aad u fara badan yahay tacliinta taalana aad u hooseysan awalan waxa la horta dadka fikrada hindisay Allah subhanahu wa ta'ala ha ka abaal mariyo maalinta wiil iyo walaaltan waxaan anfacayn waxaan leenahay kor u qaada moralka iyo talada iyo fikirka la timaadeen dadka kale ee deegaanka u dhashay iyagana waxaan leenahay meel badan baa lacag ku bixisaan hanti badan baa baxday meel badan lagu bixiyay tan waxa ku baxa khasaaro ma aha laakiin wax badan loo bixiyaa laga yaabaa in la soo qabsado aakhir waxaan leenahay dhaqaaliyaad ku bixin jirtaan oo la faraha badnaa nooc walba la hadayaan waxba sheegin ku bixiya tacliinta u jeediya oo dadkiina ka saara mugdiga dadkiina idinka ayaa u maqan idinka ayaa ka saari karaya nooca ay ku jiraan idinka ayaa maaragtay nolosha ay ku jiraan nolol lagu bedeli karaya haddaan tacliin la helin nolosha laga bixi maayo taa ayaan taagnay mar labaad oo billahi tawfiiq بس انت
وامسنتها على اسمه يسوي هذا وامسنتها بيعتبر ما درجاتنا Hello.